السلام عليكم. مقالكنا maanta waxaan uga hadli doonaa sawirkaadii muuqda. Waxaan rabaa wixii fikradeeda ugu aadan inaan ka dhigto. Waxaadii muuqda waxay tahay lamaano meel wada fadhiya, haddana misana isku buuqaya, isdagaalaya. Wax farxad ah aysan ka muuqan. Misana midkood gacanka uu ku hayo ubax ama fiyoore, haddana ay ag yaalaan hadiyado. balse wax farxad aysan ka muuqan. sidoo kale waxaa garab fadhiya shakhsi kaliya misan gacanta ku haya sawirkaas uu yahay qof dumar ah, haddana laakiin shakhsigaas wuxuu ka muuqdo waxay tahay qayro iyo dareen jacayl. qof ka maqan uu tamaninayo, maxay radaa uu xiise iyo galgacayl u qabo uu muujinayo. sawirkan xaqiiqada dhabta oo ka hadlaya waxay tahay waxaa jira maanta dad badan oo hal meel wada jooga, laakiin wax jacayl aan isku qabin. sidoo kale waxaa jira dad maanta musaafo intaasoo u dhaxaysa oo kala maqan, balse galgacaylka iyo jacaylka iyo naxariis isu qabaan aadan malaysan karin. bal fiiri maanta lamaanahani halka meel wada jooga, balse wax farxad ah iyo jacayl aysan ka muuqan. dhexdooda is cunayaan, is dagaalayaan. sidoo kale shakhsiga garab fadhiya wuxuu tamaninayaa qof ka maqan, aanan agtiisa joogin, balse jacaylka iyo xiisaha uu qabo aadan malaysan karin. waana xaqiiq jirta. waxaa iga su'aal ah, adiga si daawanaya sidaas ku nooshahay maanta haddii aad tahay gabar ama wiil? xiriirka qofka aad la qabto ha aada xiriir jacayl ama mid aad maxay radaa xaaskaaga ama qof aad qabto ha aado. xiriirkaaga waa sidee? ma waxaa tahay qof maanta xiriirkiisa uu ka maqan yahay, balse tamaninayo mar inuu u imaado, jecel in maxay rahdaa oo si ay wada joogaan galgacaylka iyo jacaylka isu qaban isku muujinayo. mase waxaa tahay qof maanta hal meel ku wada nool, balse wax jacayl iyo xiise aan isku qabin. Assalaamu calaykum. Bye bye.